عربك هدو حماضة الدنيا وكسجنا يا آخرنا وكسجنا يا إمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى وقت يقول نولا مقالة المدينة أي قصة عجيبة دعضي هويني باو صادمتي markay gabadhii soo dhimatay meedkeedii waa la dhaqayaa gabar baa dhaqaysa gabadhii meedka dhaqaysay markay gacanta dul marmarinaysay meedka dhaqaysay bay waxay tiri markay saas cawrada gacanta u dul marinaysay waxay tiri Allah maxay cawradan dambi fara badan iyo zina badan soo gashay waa gabadhii meedka ahayd bay xamanaysaa wax ka sheegaysaa waxay tiri Allah maxay gabadhan maxaa la dhahay meesha xubinta waxay tiri maxay xumaan badan soo qastay laakiin maanta qabri bay u socotaa hadalkaas marka ay tiri saas gacanta u dul marinayso baa gacanta ilaahay wuxuu ku dhajiyay gabadhii cawradeeda dusheeda gacantii markay meesha ku dhigtay wax walba oo la sameeyo waa laga fujin waaye waxa la culimada loo yeero culimadii baa loo yimid waxa la yiri culimo waa hadalkan wax ka dhaha culimadii qaar kood waxay yiraahdeen gabadha meedka xaq waxay u leedahay inaan korkeeda waxba laga gooynin maxaa yeelay nabigu wuxuu yiri kasru cadm almayit ka kasri hayyan qofka dhintay in maxaa la dhahay laftiisa la jabiya waa isagoo nool laftiisa la jabiyo kale marka qof dhintay laftiisa in la jabiyo lagu cayaaro lama ogolo saadaradeed gabadhan jirkeeda waxa laga gooyn maayo gabadhan gacanteeda loo gooyo inta yar ku dhagan halala fujiyo qolo kale waxay dhaheen maya gabadhan dhimatay kulay dhimatay iyada hada adduunyada ma kasbanayso walba iyada xogaha laga soo gooyo hilibkeedo gabadha hilibka la soo raaciyo markay sa dhibaatada dhacayso markaas iyadoo muran meesha ka taagan yahay waxa la yiri imaamkii muslimiinta oo Malik ibn Anas baa magaalada Madiina nala joogo isagii baana nool isaga loo tago fatwa la weydiiyo maxaan sameeynaa waa imaam Malik aad maqlaysaan Malik ibn Anas waa Shaafici wadaadka Sheekh Shaafici sheekhiisi weyna weeye waa kitaabka Muwatta ninka iska leh waxa la weydiiyay su'aasha noocaas waxa la yiri maxaan ka sameeynaa gabadhan wuxuu yiri gabadhu dambigay gashay waa qadfi qofka qof qadfa haduusan keenin afar marqaati ana ilaahay fi suurati nuur wuxuu ku sheegay in 8 jeeda lagu dhufto hadii kala afar marqaati ha keento gabadha inay zinaysan jirtay in kale ma afar marqaati bay haysaa waa maya wuxuu yiri 8 ha lagu dhufto jeeda waxa la soo qaatay shaabuugi 8 baa iyadoo gabadha gacanta jirkeeda u saaran tahay lagu dhuftay ilaahay gacanta uu ka soo fujiyay gabadha gacanteedii ilaahay uu ka soo fujiyay qadfigi waa laga oogay sida gabadha meedka lagu aasay